madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi oo maanka ku haya sida ay muhiimka u tahay in dalku helo macallimiin u carbisan kuna xeel dheer habka ay ardayda wax ugu dhigayaan uguna gudbinayaan ayaa si kor loogu qaado aqoonta macallimiinta waxa uu daafuray madaxweynaha Soomaaliland kulliyadda tababarka macallimiinta oo markii ugu horeysay lagu bilaabay 400 oo macallimiin oo wax ka dhiga dugsiyada hoose dhexe ee dalka madaxweynaha ayaa markii uu soo madasha laga yagleelay kulliyadaasi waxa uu daha ka rogay dhismayaal kulliyada oo si fiican loo bineeyay kormeer iyo indheendheyn kadib waxa uu madaxweynaha Soomaaliland uu kaga qayb galay halkaasi daafurka kulliyadaasi waxaana ugu horeynba munaasabadaasi ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland mudane Maxamed Daahir iyo agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Axmed Abakor waxbarashadu maadaama nolosha bini'aadanka iyo dhaqaalaha ay ugu muhiim tahay barista macallinkuna amba teacher trainingkuna wuxuu lafdaba u yahay waxbarashada laftigeega waxbarashadu maxay ahayd static ma aha ma taagna way socotaa waxbarashadu way socotaa isbedel baa maxay ahayd ku yimaada maxay ahayd habdhigista iyo maxay ahayd habka maxay ahayd aqoonta loo gudbiyo taasina waxay u baahan tahay macallinkii in uu macallinkiina updating isku sameeyo wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu ku dheeraaday muhiimadda uu dugsigan u yeelan doono macallimiinta kala duwan ee wadanka markii uu horeysay dalkeenan aanu jecelahay Soomaaliland hore iyo dibba looga furo kulliyad caynkan oo kala ah oo loogu talagalay in macallimiinteenu ay wax ku barato si tayada hagaajinta iyo toosinta waxbarashadeena wax looga qabto in muddo waxa la yidhi haddii dayaxa la waayo xidigaha lagu socdaa in badan baynu xidigaha ku soconay ilaahay idankii dayax ayaa inoo soo baxay madaxa mashaariicaha midowga Yurub ee fadhigeedu yahay dalka Kenya magaalada madaxdiisa Nairobi oo iyaduna halkaasi ka hadashay ayaa waxa ay tilmaantay doorka uu xafiiskeedu uu ku leeyahay kulliyadaasi waxaana ay sheegtay in midowga Yurub uu Soomaaliland uu ka fuliyo mashaariic kala duwan oo dalka u baahan yahay. I really congratulate the Somaliland government on the progress made in ensuring that every child in Somaliland gets access to good quality education. waxaana ay soo dhaweysay kulliyadaasi lagu tababarayo laguna carbinayo macallimiinta wax ka dhiga dugsiyada kala duwan ee dalka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi oo halkaasi ka hadlay ayaa soo dhaweeyay kulliyadaasi waxaana uu macallimiinta kala duwan ee dalka ee nasiibka u yeelatay inay wax ka bartaan kulliyadaasi uu kula dardaarmay in aqoonta ay halkan ay ka kororsadaan ay ku dabaqaan hawlahooda shaqo ardayda ay wax u dhigayaan ay uga faa'iideeyaan isla markaana ay la jaan qaadaan aqoonta casriga waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan la joogo maanta xafladan furintaanka kulliyadda waxbarashada macallimiinta tababarka macallimiinta inaan kala soo qayb galo bahdii waxbarashada waxay farxada inay munaasabadan joogaan 400 oo macallin oo tababarkoodii imka lagu bilaabayo oo ka yimid gobolada Soomaaliland oo dhan bari iyo ilaa galbeed inaan goobtan kula farxad doonayay maanta qaran ahaan kharashka inaga baxa khilaafaadka dhexdeeda kharashka inaga baxa qabaa'ilka islaynaya gurmadkooda kharashka inaga baxa muranka dhulka in maalmada ku dilo dhulkii ilaahay dhasay isku haysan kharashka inaga baxa dooda iyo faanka dhexdeeda kharashka inaga baxa booliska iyo amniga iyo wala booba iyo qabashada wuxuu noo dhisi lahaa macallimiinta iyo wasaaradda waxbarashada iyo da'yarteena oo mustaqbalka caalamka ka qayb gali kara magaalo kastana jaarinteeda dadka shaqaale jooga ardaydooda way ku filayeen inay miiska kurso sameeyaan waxa in la soo iibiyo iyo nijaarka maalinta qadinta in la siiyana dadka hantida haysteen magaalada jooga ku filayeen nasiib darro uma jeedin wax kale lagu shaqeeyay marka waxaan uga wadaa wasaaradda tacliintu way noqotaa mudnaanta koobaad inaan isugu geeyno qaranka oo dhan xoogeena si ay inoogu soo saarto umad wanaagsan iyo mustaqbal wanaagsan
madaxweynaha Soomaaliland oo sii watay hadalkiisa ayaa waxa kale oo ka warramay xaaladda guud ee dalku maraya waxaanu bulshada Soomaaliland ugu soo jeediyay inay la jaan qaadaan doorkoodana ay ka qaataan dadaalada xukuumadda uu hogaaminayo ay dalka ka wado waxaanu madaxweynaha Soomaaliland uu hoga tusaalayay sida aanay isku qaadan karin ama aanay isku gali karin qabyaaladda iyo waliba dawladnimadu walaalayaal socon mayso adduunkana kama socoto waxa dagaalada dhacaan ee la isku haysto ee adduunkana ugu buuqo in dadka koox yarina iyadu noolaatay socoto inta badanna hadho qaranku waa inuu is aaminaa waxa tuugana la qabtaa tusaale haddii maanta nin lagu qabto oo la yidhaahdo waxaa qalad gashay oday ordaya imanayo maxaa loo sheegtay war hebel oo loo jeeda hadduu taraafigu nin qabta dira wada oo ilaa wuxuu sameeyay dariiqii si qalad u maro u xiro casarka caaqilka iyo odaygii iyo wasiirkii kidowda qaniba la soo qabtay hebel maxaa loo xiray tol baan lahayn cid baan soo fuureed muxuu joogay oo markaas sidee loo soconaya madaxweynaha Soomaaliland waxa uu sheegay in xukuumaddiisu ay soo dhaweynayso talooyinka caafimaadka qaba ee xukuumaddiisa lagu toosinaya kulliyadan tababarka ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu furay in wax lagu baro korna loogu qaado tababarayaasha ama macallimiinta kala duwan ee dalka ka hawlgasha ayaa wax weyn ka tari doona aqoontii kala duwan ee ardayda ay gudbinayeen Axmed Zaki Daahir Xasan warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Hargeysa.